mudanayaal iyo marwooyin aniga oo ku hadlaya magaca qabanqaabiyaasha xafladan qiimaha badan ee ku kulmay laba farxadood mid ugu horeyso oo ah sanad guuradii 25aad ee dowlad goboleedka Puntland iyo maamulka Khatuma State of Somalia. waxaanu idinka mahadcelinaynaa waqtigiina quruxda badan ee aad ku soo deeqdeen si aad xafladda ula qaybsataan xafladaha kulmay sida caadada ahayd waxaan marka hore waxaan ku bilaabaynaa aayadaha quraanka ah waxaa inoo akhrinayaa Sheekh Cabdi Xayi Doolayare. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير الجزاء. maadaama xogaa ciriiri uu ka ahaa waqtiga dhinaciisa waxaan codsanaynaa speakerska waqtiga in la soo koobo laguna koobo ilaa 5 daqiiqo waa codsi waxaan markaa u wareegaynaa oo aanu maaragtay bilaabanaynaa xafladii aanu ku kulminaynay labada xafladood ee qiimaha badan runtiina maaragtay aad ka loo qiimeynayo waxaa xaggan inoogu sawiran President Saciid Cabdullaahi Deni Vice President Ahmed Cilmi Cismaan iyo House Speaker Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo hogaamiyaha ruuxiga ah President Cabdiqaadir Ahmed oo Cali. xuskan 25 guurada ah waxaan u maleynayaa Boston waa uga duwan yahay xusaskii hore reer Boston waxay hawl badan ku leeyihiin waqtigan la joogo maamulka Puntland madaxweyne ku-xigeenka oo reer Boston ah wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Caydiid iyo wasiir ku-xigeenka amniga oo Ismaaciil Saleebaan Geele. madaxweyne Cabdiqaadir Ahmed oo Cali waa madaxweynaha Khatuma oo cusub waxaan isaga u rajaynaynaa guul iyo horumar waxaanu leenahay xilka ballaaran ee dusha loo saaray isagana Allah u fududeeyo maamulka Khatuma State of Somalia waxaan leenahay waa wax la sugayay oo aanu saadaalinaynay soo dhawow aan ka baxo waxaan u wareejinayaa speakerska waxaan ku hormarayaa
adeer cabdulaahi guurxan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore maxaadnaq u jeedinayaa gabdhihii sharafta lahaa oo soo qabanqaabiyey in intaasoo qof ay isugu yimaadaan aad baa u mahadsantihiin baan leenahay gabdho fiican baana tihiin hawshiinana waa qabsataan inkasta annagu aan ka gaabino rag haddaan nahay waa mahadsantihiin oo waa mahadsantihiin midda kale waxaan hadda isku nimi waxay ahayd 25 guuradii ka soo wareegtay dabaaldegii ama asaaskii Puntland iyo munaasabada kale oo aynu ku soo kordhay oo ah Khaatume State oo Urdun ah oo garabkeena ah oo aan isku gacannahay oo hiil iyo hoo wadaagno iyadoo saasa ciyaar waa gelin dambe hadda guul waa gaarnay laakiin yaan lagu seexan in seexdo nin lagu seexdo waa seexan marka waxba hadalka badan maayo xafladeennana way inoo furan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayuu mahadsan yahay adeer cabdulaahi waxaan raacinayaa adeer maxamuud cabdi yuusuf gaafa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله الكريم وما سنتين انت صوت يا حفلتك إلهي غير هيدا السيو والله بهي سنة كمر إن لا يسأركه يدو لحسوسنا أي وطنكي يددكي أدبا وما سنتين غير الله هيدا السيو جزاك الله خير إن شاء الله تعالى هذا البدن هذا مبوحيو قد ما ركتي بنتلاند أنا شني لا تنسني جرتا وقان قارتي قاتمنا واحد ورجينينا إن شاء الله تعالى أيضا إلهي أيضا إنه أنت سوكلا قارسي هرمر waxaan kula talinayaa dhulkii annagu noo baahan yahay talo iyo tabar intaba marka yaan loo kala harin wixii la tari karo ha la taro wixii ra'yi ah oo lagu biirin karo ha lagu biiriyo dhulkaniya ilaahayna siiyey aniga waxaan joogay Puntland 6 sanaan joogay 91 ilaa 96 baan joogay weligay wallaahi talyaanigu wuxuu oran jiray terra inhabitabile dhul lama degaana iyo noo juqraafi noogu dhigi jiray laakiin waxaan ogaaday beer bad macdan wax kasta ilaahay biyuhu waa marka qodid waa 1 mitir 2 mitir jiraan biyuhu marka waxa u baahan yahay dadkii laga faa'iideysto dadkii la niyad geli beero ay fashaan kalluunka dabtaa warshado dhulkii laga sameeyo marka saacad waa gid dhamaatay marka ilaahay waxaan u rajaynaynaa dadkaas in ilaahay uu toobado waafajiyo oo midnimadooda iyo dadnimadooda ay dhulkooda ku dhistaan ayna ka tala baxaan xamar iyo wixii la jiro midnaba xamar kabitaale ha noqdo laakiin waxa weeye isku tashaadin isku tashaadin aad baad u mahadsantahay adeer maxamuud waxaan siinayaa adeer nageeye. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد آد إلهي باهورت مهاد إسكاله مهاد دكالنا وحوي إنتي حفلة دان سوء قاسمتي وحان كلو كارلينا جانس كان وناكسن وإلهي نسيي لبدا فرحادات وإسكو إيدامن وشان يلباتن سنة جوردي بوتلان ستيت كاس محامكو إرادة يلا أساسي شرعي دستور لو سبيي أيضو سيدة كله أي ولي ألف حمل حتى أيسن بلابي ما أنتنا أرنتور أي مريسو أن لقاش كين كرين قفكي أنو طولمات بوحن كم مري إلا كرامة محامكو إرادة يبوساسو
waanan degay qofaan marka meesha arag kama u sheekayn karo horumarka jira taasina waxaa lagu gaaray iskaashiga iyo midnimada taas siday u socotay ilaahi weynaa iyo qudradiisa waxaa dhashay maxaan ku iraahday SSC state of maxaan ku iraahday khaatumo waxaana sababta keenay Soomaaliya waxay tiraahdaa in kastoo nin geesi rag geed adeeg yahay haddaan garabka laga hayn guri reer ma oodo gacansiintii iyo hiilkii loo fidiyey oo Puntland iyo eelada kale oo qof kasta oo weel wiishar oo Soomaalinimo jecel ama saxaafadda ha noqoto ama maxaan ku iraahdaa xataa sheekada kaliya iyo hiilku wuu galaaban maqli jiro qosolka marka Soomaali badan oo weel wiisharaha jiro niyasami jecel Soomaali inaysan kala go'in laakiin arrintan dhacday waxaa koosgareeyay dad maskaxdana ka ah maxaan ku iraahdaa shisheeye muuqaalkana ka ah Soomaali oo lagu shaqaystay ba arrintan dhaliyay laakiin nasiib wanaag alxamdulillah rabbil caalamiin waxa mahad iyo ammaan iska leh maxaan ku iraahdaa garaadada ku mintiday siyaasad ahaan iyo maxaan ku iraahdaa aqoon ahaan iyo maxaan ku iraahdaa karti ahaan iyo adkaysin ay u adkaysteen ilaahayna waa ku guuleeyay garabna way heleen awshaasuna way sii soconaysaa waxa kaloo intaas raaca ku dayan mayno ama laguma dayanayo sida ay wax yeeleen ummadan kale inkastoo dadweynuhu aysan waxaan fulin laakiin dadkii aan ka hadlayay oo siyaasadoodu qalloocnayd ay ku kaceen maatada layntooda iyo madaafiicda sidaas daraadeed haddii dagaal dhacay maxaabiis baa la qabtay dhaawacna wuu jiraa wax badan baa jira waxaan jecelahay ayaguna ay og yihiin waxaa jira waxa la yiraahdo Geneva Convention oo maxaan ku iraahdaa askariga la baro ama qof kasta la baro maxbuuska iyo ninka dhaawaca oo la qabto iyo maatada inaan la tilciliyay si caadi loo xanaaneeyo kadibna lagu wareejiyo maxaan ku iraahdaa adduunyada caalamka hay'adda iska leh hawshaas sidaas daraadeed mustaqbal fiican ama bilow fiican ayay runtii raggii guushan soo hooyay ay gaareen oo yaan maxaabiista la taaban waad u jeegdeen in dharka laga bedelay waad u jeedeen wanaaga loo sameeyay laakiin lagu dayan maayo dhanka kale qof xun laguma daydo qof fiican baa lagu daydaa taas weey waxa kale oo mudan in mataqaanaa laga taxadaro midnimada in laga taxadaro calankaas muddo badan baa dad badan oo halgan dheer u soo mareen waxa laga yaabaa aniga iyo wixii hadda iga yar inay generation dambe yihiin laakiin shanta Soomaaliyeed waqti badan baa la raadinay rag badan baan u halgamay culummiya caamo iyo hooyooyin muriyadooda u furay muriyad dad badan baan aqoon iyo kuwa ayagoo uur leh ku dhalay maxaan ku iraahdaa xabiska wax badan baa loo maray sidaas daraadeed yaysan noqonin dadka qaar baa waxay ka tahay qof geedkii degdeg aad ku fuusho degdeg baa looga soo degaa yaysan taasu nugu noqonin hadalka yaanan badinin dhibaatada ummadaha qaarkood u mareen xorriyadda sida Algeria oo kale iyo wixii la mid annagu uma aanu marin dib kasta oo jirto aanu soo marnay ilaahay waa noo sahlay marka ilaahay baa xamdi iska leh ilaahayna aan ku shukrino waxa dadka xun ay sameeyaan ku dayan wasalaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay adeernagay arrimaha maaragtay u taabtayna aad baan maaragtay u qaadanaynaa waxaan haddana u yeerayaa محمد جامع شانلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد marka koowaad waxa mahadle Allahi caawa noo suura galiyay inaynu halkan isugu nimaano oo si nabadgelyo
halkan aynu ku xusno sanad guurada 25aad ee ka soo wareegtay aas-aaskii dowlad goboleedka Puntland. marka labaad waxaa mahad leh gabdhihii halka kan noo hagaajiyay aad isugu xilqaamay kaalintoodiina ka soo baxay, laakiin kaalintii ragga waxaad u maraysaa inay weli loodayso meel laada. marka waqtiga soo socda 26ka sanad guurada 26aad iyo wixii ka dambeeyna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ragga kaalintiisa uu qaato. intaa waa iska kaftan. maanta caaw waxay ahayd 1 Agoosto sanad guuradii 25aad. waxaad aragtaan maantayna 27 inay tahay. marka halkaa gaab baa ku jira, gaabkaasna waxaan rajaynaynaa marka soo socota in la saxo. intaa markaan ka gudbo, Puntland 25 sano ay jirsatay. runtii 25 waa rubac qarni weeye. 25 sano wax sahlan ma aha. kaalinta shacabka anigu waa ka imi, haddaan ka imi muddo badanna waa joogay. kaalintii shacabka aad bay ooga soo baxeen, laakiin mar walba waxaan ka jiisnaa kaalintii dowladnimo, ama ha noqoto federaal ama ha noqoto dowlad goboleed. Soomaaliya maanta dhibaatada haysata waa hogaaminta madaxtinimada weeye ayaa maaragtay xoogaa dhib ka jira. haddaad fiirsato shacabka waxaad arkaysaa gawaari joogta suuqa meesha wax lagu kireeyo waxay u socdaan 4 bayna garjaho Soomaaliya isaga socdaan. shacabka marka waxaa garanaysaa meel kastoo uu joogo dhibaato inayan jirin, laakiin maamulada ayaa ma aragtay si kastaba ha noqotee xoogaa la dhaliilaa oo ma aragtay dhibaato ka jirta. waxay ahayd rubuc qarni meesha meel ka fiican inaynu joogno, haddana iyadoo ay saa tahay Soomaaliya markaad eegto waa meesha koowaad oo ugu fiican oo ugu habboon oo nabadgelyo meel walba lagu marayo, oo muxuu ahaayay aad u malayso dowladnimo taama inay ka jirto. meelaha kale waa naga daran yihiin, waa ma aragtay meelaha aan jirinba. baydhabaan tagay waa dhaweyd 8 cishaan joogay. ma lihid yani tuulo ka mid ah Puntland ma gaarayso. tuulo habeen noqoto garoomada diyaaradaha la sameeyay iyaga tii hore weyneyd bay dhameystirin. marka aad baa ma aragtay Soomaaliya waxaa habboon inaynu u duceyno oo ummadda qalbigooda isu soo jeediyo meel kastoo ay joogto, inaynu ma aragtay waxa dulmiga wadana ilaahay dulmiga ka qabto, kuwa dulmana dulmiga ka saaro. in ma aragtay ummadda qalbigooda ilaahay isu soo jeediyo oo waxa waa kaa dhimay oo kugu dhimay meel kastoo ay socoto. Soomaaliya maanta meel walba xabad baa ka socota. waa dhaxdaas way rooneed oo kor bay u socotay, laakiin hadda waxaad u maraysaa in ummadii hadda qoryihii iyo hubkii la isu safaysanayo meel ay gaari doontana lama oga. marka ilaahay waxaan u baryaynaa in ilaahay ma aragtay ummadda kala qaboojiyo, waxa dulmana dulmiga ka qabto, waxa wax dulmaya kuwa dulmana dulmiga ka saaro, dalkeennana noo dejiyo. waa naga badan yahay dalku, waa barwaaqo dal iyo dibadba. barwaaqada ku jirta iyo ma aragtay Afrikada haddaad soo qaado bari meel la mid ah ma jirto Soomaaliya maanta hadday nabad noqoto waxa ku jira meel laga helayo male. marka haddana waad aragtaan ummadeena gaajo u baaba'aysa, barakacayaal baa meel walba ka samaysan 4 bayna garjaho ee Soomaaliya. marka ilaahay inaynu u barino, ummadana aynu u duceyno. annaguna ilaahay sanadka soo socda nabadgelyaha nagu gaarsiiyo, iyadoo waqtigaa ka fiican intaa laga fiican yahay, ama guud ahaan dalkii ha noqoto ama gaar ahaan Puntland ha noqoto ama Khaatuma ha noqoto. in ilaahay meesha maanta ay joogaan meel ka wanaagsan iyagoo jooga, ilaahay inuu na gaarsiiyo, ummadana aan u duceyno. waxaan intaa ooga baxayaa khudbadii waqtiga yar isku qabtay. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u malaynayaa dhextaal baan u baahanna, marka raggu ma wada saarnaan karno. waxaan u yeerayaa Shahmaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هو الرئيسة
waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa gabdhihii qaaliga ahaa oo tirada badnaa oo maaragtay arrintan facilitate gareeyay in caawa halkaan aan isugu nimaadno sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegtay dhismihii maamul goboleedka dowladda Puntland iyo inaugurationkii walaalaheena Khaatumo soo dhawaada idin leeyahay mar kasta wax badan ma sheegayo waxa weeye ragga ayaa noo sheegay wixii aniga waxaan sheegayaa kaliya waxa weeye waxa loo baahan yahay midnimo loo baahan yahay ummadda waxaan ku waaninayaa hadii ay dhagaha u furan yihiin inay midoobaan hadday noqoto kuwa gaarka ah Puntland iyo Khaatumo iyo meelaha kaleba iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waayo waxa dan inoogu jira inaan midoowno dhamaanteen haddaynan midoobin cadawgu way naga faa'iideysanayaan mid dhow iyo mid fogba marka waxa loo baahan yahay midnimo loo baahan yahay dalkeenu waa dal dihan dadkeenu waa dad maasha Allah aqli entrepreneurship ah oo wax garashada dheer marka culayska Ilaahay naga dulqaado waa duceyneena ummadda waxaan Ilaahay uga baryeynaa inay midoobaan inay tawfiiqda Ilaahay waafajiyo inay Ilaahay ka baqaan min raas Gamboni ilaa raas Caseer ilaa ummadda cirifka shanta Soomaaliya oo dhan inay wada jir inta aan wada shaqeyn karin inay istaakuleeyaan isgarab istaagaan wax isla qabtaan markaas ayaan shacabkeena iyo ajiyaasheena soo socdo wuxuu qaban karnaa haddaynan taa yeelina mid baan meel ugu baqtiyeynaa marka waxa weeye inagoo wada shaqeynayno midownay aynu wax wada qabsano wabillahi tawfiiq sanad guuro wanaagsan gaar ahaan reer Puntland waxaan ku waaninayaa reer Puntland oo munaasabadan caaw dulucdeeda ugu weyn ay ahayd waxaan leeyahay waa inaad midowdaan waayo dad Soomaaliya oo dhan ayaa idin fiirsanaya leaders baatihiin ummadda waxaad u horseedaan maxaan ku radaa federalism ummadda caalam baad u lusheen maantana idinka idin agtaala marka meesha ka kacan leeyahay waxa weeye Khaatumo sidoo kale Allah barbaariyo Allah garab qabto dawladaha kale maamul goboleedyada kale soo korhaya sidoo kale Allah garab qabto Soomaaliyana Allah ciiseeyo Allah sharfo hadda waxa leeyahay geedi caana leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو باهيه ديمقراطية إن لا تاجره إن دلان إن لا تاجره لو باهيه وحوي أدون كان وح عن نقطة ضعف لهين مجرى وحول بقى مركي بلابانيان دب بيليهن مشاكل بيليهن لكن مركي لجبحه أو المدوبه أو قعن مدل النقطة جد عنا لوي ولا تلعب سنية وحنا ضد كنا والله قبنا كرا الصومالي أنا وحبا الله قبنا كرا ضد كأن ما أردت أن كواي أركسن هاي أو أن كهر مرنين فدراليزك وكهر مرنين وتاجيري كرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وهذا دمانتين